in dib loogu laabto lana soo dedejiyo doorashada kuraasta lagu muransan yahay ee golaha shacabka gaar ahaan 8 ka mid ah baarlamaanka hadda shaqeeya waa doonista oda dhaqameedyadii hoggaanka u ahaa beelaha iyo shakhsiyaadka muranka uu ku jirto kuraastoodu kulanku waxa uu ka dhacay Muqdisho waxaana lagu taageerayay hadalkii xeer ilaaliyaha ee ahaa in la sarreysiyo sharciga loona hoggaansamo amarkii maxkamadda sare ka soo baxay 26 May ee sanadkan taas oo lagu sheegay in la laalay kuraas ka kooban 8 xildhibaan oo gobolada dalka lagu soo doortay go'aanka waxa gaartay maxkamadda sare ee dalka qaar ka mid ah oda dhaqameedyada ayaa dawladda iyo hoggaanka golaha shacabka ka dalbaday in doorashada 8 kursi oo muran uu ka jiro doorashadooda durbaba la gudagalo waxaan ka hadlaynaa shirkeena jaraa'id uga hadlaynaa 2016 kuraastii ee doorashada dadban oo la ogaa oo madashu go'aan ay ka gaadhay oo beesha caalamku ay go'aanka ka gaadhay oo guddiga khilaafaadku ay go'aan ka gaareen kuraastaas oo inta meeshaan fadhida lagu dulmiyey oo la isku dayay in la boobaan ka hadlaynaa kuraastaasi waxaan nahay dhaqankii intaani Soomaaliyeed qayb ka mid ah dadka loogu qadarin badan yahay oo bulshada ku jiraan nahay kuraastaas dacwo badan ka bacdi waa la xukumay hay'adda garsoorka xukuntay go'aan bay ka soo saadhay marka hore ilaahay baa mahadsan hay'adda garsoorka waa u mahad celinaynaa qof ahaan ugu mahad celinayna laakiin guud ahaan say u waafaqday cadaaladda dulmigiina ay uga horteed baan u mahad celinaynaa waxaan kale u mahad celinaynaa guddiga khilaafaadka oo calaameeyay kuraastaas inaan doorasho ka dhicin meeshaas calaameeyay ugu mahad celinaynaa waxaan u mahad celinaynaa wax alla wixii ka qayb qaatay cadaaladda oo soo dhaweeyay sida beesha caalamka oo kale iyo qof kastoo ka daqnadana waa u mahad celinaynaa intaas ka bacdi xukun baa dhacay waxaan rabnaa xukunka dhacay fulintiisii intaan malaqyada iyo ogaasyada iyo boqoradu ay u fadhiyaan xukunkaas waxaan rabnaa in la fuliyo waxaan rabnaa in madaxweynaha ugu sarreeya dalka gudoomiyaha baarlamaanka ra'iisul wasaaraha hay'adda garsoorka waaba soo saadhay fulin in loo fuliyaan rabnaa waqtigii aan keeni lahayn odayaasheedu aan soo xuli lahayn ergadii iyo meeshii iyo madashii aan rabnaa haddii alla idmo waxaan ku sii adkaynaya Soomaali haddii dhibaato kasta oo kale la bado oo cadaalad hesho ma garato dhibaatada kaleba haddii wanaag kasta loo sameeyo oo cadaalad weydo ma garato wanaagga kale cadaaladda Soomaalida oo dhan u muuqata oo ay ku degtaa oo ku socota dadkan hadda halkay isu keentay kuraasidooda la boobay Soomaali gees kasta waa ka yimaadeen si dad garanaya waa ku yar yihiin waxa isu keenay dooridda cadaaladda iyo dulmiga ay arkeen maanta ka hor ama waqtigan ka hor salaadiin ama boqorro ama malaaqiyo ma kasaba ha yeesheen saxaafad taagan oo dacwo u taagan waa wax cusub oo dalkan ku soo kordhay waxaana keentay gurigooda ay fadhiyeen oo geedkaasi ka ducayn jireen boobka iyo khaladka dhacay baa keenay halka isugu yimid iyo dadkii dhibanayaasha ahaa oo gariifada xun soo gaartay ilaa ii waagiina daba taagnaa arrimihii khaladka u dhacay ee baarlamaanka lagu sheegay dad aan baarlamaan ahayn waxaan u qabnay shirkan maanta inaan kaga hadalno arrimihii boobkii helalkii baarlamaan ee ummaddu ay lahayd sanadkan uu soo gaaray iyo sidii looga daba tegay maxkamadeennii sare cadaaladda arrintii markay aragtay oo qiimaysay waraaqihii ka yimid United Nationka iyo kuwii ka yimid guddigii loo hel saaray iyo kuwii ka yimid odayaashii dhaqanka wixii oo dhan marka la isdul saaray kuraastii waxay noqotay dadkii lahaa in dib loogu celiyo ilaahay baa ku mahadsan maxkamadda arrintaas ugu mahad celinaynaa waxaan kaloo rabaa inaan ka hadlo shalayba nin aan xaq u lahayn baa soo magacaabay wax loo daba taagnaa baarlamaanka Soomaaliya inay ka doodaan arrimahan xaq uma laha haddii laga been sheegayna waaba taasoo lama haysto haddii damaca ka galayna waxaan leenahay jawaari nin maamul wanaag iyo cadaalad ay adduunku ku yaqaanaad tahay meesha adaa horseedka ah adinu ka harbaan ku leenahay intaa waxaa ii dheer sharciga qolaa dejisay qolana xukunkii bay haysaa waa cadaaladda baarlamaanka sharci dejiye waaye sharciba hore u dejiyey madaxweynaha Soomaaliya oo shalay naga ballan qaaday markuu ku jiray tartanka corruption
iyo musuqmaasuq inuu la dagaalami doono cadaaladii lagu maamulaya dalka asagana waxaan leenahay cadaaladii baan kaa sugaynaa qaarna waa kaa helnay kuwa dhimanna insha allahu tacaala dadkan meesha fadhiya maanta waa dad magaalo waa dad mutacalimiin ah waa dad wax yaqaana wixii ka maqanna waa yaqaanaan wixii dad kale ay leeyihiin way yaqaanaan waxaa jira warar sheegaya in guddoonka golaha shacabka Professor Jawaari uu ku howlan yahay in dib aan loogu laaban doorashada 8 kursi oo lagu muransan yahay Calaadan Muumin Goobjoog Muqdisho.